qoraalka guddiga waxaa ka muuqata kordhintii ciidanka loo sameeyey $50 xataa in la kala qaybiyo ciidanka oo la leeyahay ciidanka aan darajada ku qaadan taa sax maaha qaraarka maalintaan ansixinaynay ciidamada qalabka sida oo idil ayaan u qaybinay aan u kordhinay mushaarka $50 uma aan kala saarin ciidanka aan mushaar darajo ku qaadanin iyo mid aad darajo ku qaatay dhammaan ciidamada qalabka sida ayaa waxaan u kordhinay lacag $50 oo bishii November ka bilaabanayso mana la siinin oo ilaa iyo hadda ma maqal inay qaateen ciidanka mushaarkaas anaga guddi ahaan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga arrintaas waxbaa naga soo gaaraya mar walba askar cabanaysa saraakiil cabanaysa oo mushaaraadkoodii iyo kordhintii intaba ka hadlaaya ayaan aragnaa waxaan rabnaa wasaaradda miisaaniyadda hadda 2018 waa inay ku soo daraan qodobka kale oo muhiim leh ee guddiga ay xuseen ee aan rabo inaan akiido waxaa weeye xildhibaanadii hore gunooyinkooda waa in lagu soo daraa waa xaquuq ay lahaayeen oo mushaar ah curaar lama aadin karo deymo laguma dhex diri karo waxaa lagu soo darayaa bajetka meelaha noocaas ah haddii ay wasaaradda iska soo saxdo waxaan qabaa in ay wax badan ay qabsoomayeen runtii qoraalka kala soo jeedinta guddiga waxaa ka muuqda qaraarada baarlamaanka inay wasaaradaha siiba wasaaradda maaliyadda ayna dhaqan gelin annaga guddiga ayaa wakiil nooga ah wasaaraddaada ayda waxa ay noo sheegaan ayay dhagahayna ku dhacaan waxaan rabnaa walaalayaal oo wasaaradda haddaad tihiin inaad qaraarada la dejiyo oo baarlamaankan ka soo baxo la ansixiyo oo baarlamaanka lagu ansixiyo aad qaadatiin siday tahay aad u qaadatiin waayo mar haddii qaraarka la ansixiyo guddoomiye sharciyuu noqonayaa sharcigana in la diidaa waa dembi waxaan ka codsanayaa waa iga codsi in qaraarada muxuu ahay baarlamaanka ka soo baxa ay wasaaradaha sidooda u qaataan si wasaaradda maaliyadda inay sidooda u qaadato waa sax deymaha in la soo rajiis gareeyo baarlamaankanaas waxa ka ogaada maalin walba deyn baa la sheegaa soomaali badanaan ay ka maqan tahay xaquuq deymaha in la yaqaano qofka deynta leh laba noqoshada badan leh berrita inuu qaataad ilaa hadda waxaa la sheegaya ilaa iyo cabdiqaasim dad deyman sheeganayo deyntu waa inay baxdaa intii awoodda ah ee ay wasaaradda sanad miisaaniyaadka ay awoodda waa inay bixisaa ma garanayno maba la bixiyo miya meesheeda ma dhaafto maalin walba curaar iyo deymin iyo balaayo unbaa kusoo noqnoqonaya miisaaniyadda waxaan ka codsanaynaa intii karaankooda inay bixiyaan shacabka hantidooda waa u baahan yihiin muxuu ahaay maalin walbana xildhibaanada ruuxooda dhib ay qabaan waxaa lala cararayaa warqad war hantidaana iga maqanay haliila bixiyo way nagu badan tahay arrintaan hanala raadiyo xildhibaankaygaa tahay waad ogtihiin taas inay nagu badan tahay marka waxaan ka codsanaynaa oo aan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa qaraarada baarlamaanka ay gaaraan inay wasaaradda qaadato